kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Bisla TV. Waxaa la soo gaadhay waqtiga idin soo gudbin jirnay warbixin naga soo gaadhay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. qodobo xiiso badan ayaa daawan doontaa intay socoto xilli tabinteena wareed balse aan ku hormaro kuwooda ugu waaweyn. xisbiga waddan ayaa baaq ka soo saaray doorashada shirguddoonka golaha wakiilada Somaliland oo maalinimada beriya yeelan doona fadhigooda ugu horeeyay ay ku dooranayaan hoggaanka shirguddoomin doona golaha wakiilada shanta sano ee soo socota. maamulka gobolka Hiiraan iyo taliska militariga gobolka ayaa waxay si kulul u eedeeyeen qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan intay socoto xilli tabinteena wareed. imikaatan waxaa isku diyaarisaan faahfaahinta qodobadaas iyo kuwa kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida tooska ugu xidhantihiin Bisla TV. mar kasta iyo meel kasta ood kala joogtaanna waxaad nooga barateen inaad la wadaagno barnaamijyo iyo weliba wararkii u dambeeyey ee geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. haddaad tahay qof nagu cusub fadlan subscribe saar channelka si aad ula socoto mar kasta wararka iyo warbixinada barnaamijyada wata ee soo gelino bartan. waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. ballanteenu waa barnaamijyo tayo leh, warar xiiso leh iyo walba dhacdooyinkii u dambeeyey ee geega Soomaalida iyo guud ahaan caalamka. waa mahadsantihiin. gudoomiyaha ku-meel gaadhka ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaa ku baaqay in aan dhibaato laga dhex abuurin xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee cusub iyo musharaxiinta u taagan doorashada shirguddoonka. Jirde ayaa sheegay in dhammaan 28 xildhibaan ee u soo baxay golaha wakiilada ay isku mid yihiin oo mid kasta oo ka mid ah uu noqon karo shirguddoon ama afhayeenka wakiilada, isla markaana labada musharax ee tartamaya Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiif Faratoon ay yihiin laba nin oo isku mid ah. Jirde ayaa sidoo kale ku baaqay in maadaama doorasho la amaanay ay Somaliland ka dhacday aan buuq iyo khilaaf laga dambaysiin oo la iska ilaaliyo wixii sawir xun ka bixinaya doorashadii dhacday. xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadka Somaliland ayaa loolan adag ugu jira sidii midba midka kale ugaga guuraysan lahaa shirguddoonka golaha wakiilada Somaliland iyadoo kalfadhiga koowaad ee golaha wakiilada cusub qabsoomi doono maalinimada beriya. isla shirguddoonka beri furmaya ayaynu ku guda jirnayay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarow xoogan oo la xidhiidha doorashada hoggaanka golaha cusub ee wakiilada Somaliland iyadoo xukuumadda Somaliland ay soo dhoobtay amaba ay diyaarisay 400 askari oo iyagu ilaalin doona xarunta baarlamaanka xilliga ay socoto doorashada shirguddoonka golaha wakiilada cusub ee Somaliland oo maalinimada beriya furmaya kaasoo uu furi doono gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed isagoo mudanayaasha dhaarin gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeita Cismaan iyo taliyaha guutada shanaad qaybta 17aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Xasan Ibraahim Baakaay ayaa si wada jir dhaliilo adag ugu jeediyay ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan. gudoomiyaha Cali Jeita ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan ay si cad uga diideen inay kala qayb qaataan ciidamada dowladda Soomaaliya howlgallada ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab. taliyaha ciidanka militariga gobolka Hiiraan ee guutada shanaad qaybta 17aad Maxamed Xasan Ibraahim Baakaay ayaa sidoo kale dhankiisa ku eedeeyay in ciidamada AMISOM ayna wax shaqo ka qaban gobolka Hiiraan 4 sano ee la soo dhaafay. eedayntan kulul ee ka soo yeedhay maamulka gobolka Hiiraan iyo taliska ciidanka ayaa imanaysa xilli muddo 7 ah ciidamo hogaaminayay gudoomiyaha Cali Jeita ee howlgallo lagula dagaalamaya Al-Shabaab ka wadeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Maxaas kuwaasoo dib ugu soo laabtay magaalada Beledweyne. marka ka imanaya dalka Masar ayaa sheegaya in ciidamada militariga dalkaasi ay laayeen in ka badan 80 ka mid ah maleeshiyaad xag jiriin ah oo ku sugnaa gobolka Sinai. militariga Masar ayaa sheegay in howlgalka ay gobolkaasi ka fuliyeen ay ku laayeen maleeshiyaadkan oo sida ay sheegeen halis ku ah ammaanka guud ee waddanka Masar. waddanka Masar ayaa waxaa ka socday maalmihii iyo muddooyinkii u dambeeyey baaritaano ay wadeen ciidamada waddanka Masar oo loogu suulinayo ama meesha laga saaray ururada argagixisada ee ku dhuumaalaysanaya gobolka Sinai iyo gobollada koonfureed ee waddanka Masar.
ayaan aadan cabdilaahi ayaa noqotay haweeneydii labaad ee kusoo baxda doorashada xildhibaanada aqalka sare ee koonfur galbeed ku bedelaya baarlamaanka labaad ee aqalka sare. senator ayaan aadan cabdilaahi ayaa ku guuleystay doorashada kursiga ay u loolamaysay kadib markii ay baarlamaanka koonfur galbeed ay ka heshay 79 cod. waxay ka guuleysatay farxiyo nuur aadan oo codadkii la dhiibtay ka heshay 8 cod oo kaliya. 5 ka mid ah codadka ayaa halaabay iyadoo tirada guud ee codbixiyaashu ay ahaayeen 29 mudane. koonfur galbeed waxay markii labaad baarlamaanka aqalka sare u dirsanaysaa 2 senator, waana maamulkii ugu horeeyay tallaabo noocaas qaadaya. aqalkii hore waxaa koonfur galbeed u matalayay samsam ibraahim cali oo maanta mar kale kursigeeda difaacatay iyo timiro maxamed cali. dowladda jabuuti ayaa ka hadashay rabshado shalay ka dhacay magaalo madaxda dalkaasi oo geystay khasaare kala duwan. wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan ayaa sheegay in rabshadu ay ka dhaceen dhowr goobood ay ku jirto xaafadda isku raranta ee balbala. la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay inay dhacday dhimasho, hase yeeshee muu sheegin tirada dadka ku dhintay rabshadahaasi. wararkaanu ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in rabshaduhu ay la xidhiidheen colaada ka taagan gobolka City ee dalka Itoobiya, halkaasoo ay colaadi ku dhex martay Soomaalida iyo Canfarta. sawirada ka imanayay magaalada Jabuuti ayaa muujinayay guryo la gubay iyo qiiq ka baxayay. wasiirka ayaa intaasi waxa uu raaciyay inaanay dowladdu dul qaadan doonin fitno sida uu hadalka u dhigay. waxaanu sheegay in dowladdu ay faro adag ku qaban doonto. Madagaskar ayaa xidhay 21 qof oo kale oo la tuunsan yahay oo ay ku jiraan 12 shaqaale militariya, kuwaasoo lala xidhiidhinayo shirqool lagu dili lahaa madaxweynaha waddankaasi laguna ridi lahaa dowladdiisa. waxaa sidaas axadii sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan dacwad oogista waddankaasi. 6 qof oo ka mid ah Faransiisa kuwaasoo bishii tagta loo xidhay tuun ku saabsan inay ku lug leeyihiin shirqoolka. kadib waxay saraakiishu ku qeexeen baadhitaan tiri la xidhay ayaa waxaa ku jiray 5 jenaraal oo ka tirsan ciidamada waddankaasi, 2 kabtan iyo 5 sarkaal oo kale, sida ay sheegtay Britain oo ka tirsan maxkamadda racfaanka ee Antonovia. mayna shaacin aqoonsiga dadka la xidhay. 4 qof oo ajaanib howlgala iyo 5 muwaadin ayaa sidoo kale la xidhay, waxaana qaar ka mid ah ay ku jiraan gacanta booliiska, sida ay sheegtay Britain. askar ayaa waxay leedahay taariikh qalalaasa siyaasadeeda. Julian ayaa xukunka dalka 26 milyan ee qof ay ku nool yihiin. wuxuu afgembi ku qabsaday 2009 isagoo riday Marcus Raffalomona. wuxuu madax ka ahaa dowlad ku meel gaadha ilaa 2004, wuxuuna 2018 ku adkaaday doorasho madaxweyne oo uu la galay Raffalomona, kaas oo sheegay in ugu yaraan 302 qof ayaa ku dhintay daadad dhowaan ka dhacay bartamaha Shiinaha. 50 kalena waa la leeyahay, sida ay saraakiishu sheegeen Isniintii. roobab mahiigaan ayaa muddo 3 maalmood gudahood ka daayay bartamaha gobolka Henan, taasoo sababtay burbur iyo dhulgo ku yimid dadka degan tareenada dhulka hoostiisa mara, baarkinada baabuurta dhulka hoostiisa ku yaal iyo godadka dhulka hoostiisa mara ayaa iyana dhulgo ku yimid uu sii kordhiyay khasaaraha dhimashada. tirooyinku waxay ka dhigan yihiin 3 jibaar marka loo eego tirada dhimashada ee hore loo shaaciyay oo ahayd 99. dowladda gobolka Henan ayaa ku dhawaaqday in 229 qof ay dhinteen, 47 kalena la leeyahay magaalada Shingawi ee caasimada Henan. 10 kale ayaa ku dhintay 3 magaalo oo kale, sida ay saraakiishu ku sheegeen shir jirayd oo ay ku qabteen magaaladaasi. sida la soo xigtay mas'uuliyiinta 189 qof ayaa ku dhintay daadad iyo dhoobo. 54 guryo ayaa dumay iyo 39 dhulka hoostiisa. 6 qof ayaa ku dhimatay marinka tareenka, halkaasoo 247 baabuur laga soo saaray maadaama ay biyihii ka baxeen goobtaasi. mas'uuliyiinta Henan ayaa waxay wajahayaan baaqi isdaba joog oo ku saabsan isla xisaabtan. dadka adeegsada baraha bulshada ayaa dhaliilay sida ay dowladdu u maareysay xaaladda daadku sababeen, waxayna dalbadeen nidaamyo lagu maareynayo musiibada oo wanaagsan. sida ay qoran warbaahinta Shiinaha, dowladda dhexe ayaa samaysay koox baadhitaan ku samaysa wax ka qabashada musiibada iyo la xisaabtanka kuwa mas'uulka ka ah dayacaadda. si kastaba ha ahaatee, dhaleecaynta wax ka qabashada dowladda ee musiibada ayaan ahayn mid si fudud loogu jawaabi karo.
mas-uuliyiinta ayaa meesha ka saaray dhaleecaynta waxaana fahamsan yihiin dadka eedda u soo jeediyey inay arkeen un waddada dhulka hoostiisa marta ee marinka waa tareenada dhulka ku yimid waana calaamad dareen u leh dhaleecaynta dadweynaha. waa tahay daawadayaal, qodobkaas ayaan kusoo afmeerayaa warka Bisla TV oo xilliga si toos ah idila socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Cabdisalaana. intaynu ku kulmayno warkan iyo wararka soo socdaba waxaad kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.